بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين magacaygu waa abaan maxamed jaan nur daajiye ku magac dheer halkan waxaan doonayaa galabta inaan ku bilaabo barnaamij cusub oo ka hadlaya buugan oo magaciisu yahay kahor kuma tahay waxa weeye buug cusub oo aan soo saaray dhawaan 2018 bilowgoodii daabacaadiisii koobaad weeye marka wuxuu ka fursan waayay buugaasi in aan bulshada ugu soo gudbiyo 10 wuxuu ka hadlayaa 10 kooban oo ina khuseeya taaban doonana qof kasta sida halka ka muuqata waxa ku qoran kahor kuma ayaa tahay qof kasta marka uu arko isweydiinaya wuxuu ku soo dhacaysa goorma ayaa la sheegayaa yaase la sheegaya haddaba buugan kahor kuma tahay wuxuu ka hadlayaa qof kasta oo dunida guudkeeda yimi qof kastaana ku yahay marka uu xisaabtamo buu garanaya waayahay kaad adigu tahay qof kasta oo barnaamijkan daawanayo dib isugu noqo oo soo saar kahor kuma tahay wuxuu ka hadlayaa oo ka bilaabmaya nafta yaani qofka bini'aadanka naftiisa noloshiisa nafta iyo nolosha marka aynu kala qaadno wuxuu si kala saarayaa nooluhu waa qayb kala duwan isaguna wuxuu si kala saarayaa makhluuqan dunida guudkeeda yaala ayuu si kala qaybinayaa qayb kastana mucjiso iyo miisaan u gaar ah ayay leedahay haddaba qof kasta oo muslima waxa la doonayaa inuu xisaabtiisa dib ugu noqdo casharkeena koobaad oo ka hadlaya nafta haddaan dul istaago naftu marka hore qofka bini'aadanka naftiisu meel bay ka bilaabmataa marxalado kala duwanna way martaa meel way ku dhamaataa waxa hubaala oo lama huraana in halka ay ku dhamaanayso nafteenu ay tahay godka iyo geerida waxa lala tagaa wixii lagu sii shaqaystay adduunyada marka waxaynu doonaynaa qof kasta inuu isweydiiyo 3 sababood sida buugan inoogu qoran cilmigu waa iska raadraac laakiin wala sii kordhin karaa inagoo dhanka diinta ka raacayna qof kasta waxa la doonayaa inuu isweydiiyo 3 su'aalood 3 su'aalood waan anigu idin soo gudbinayaa inay yihiin kow kuma tahay horta adigu kuma tahay ma waxa tahay qofka dunida guudkeeda ku saaqiday ee ku lumay ee raacay dadka xun mise waxa tahay qofka ilaahay jecel yahay ee wada raacay dadka wanaagsan waayahay waa isweydiinaysaa adigu isweydii xagaad ku socotaa su'aasha labaad xaga aad ku socoto calaamadii ma waxaad ku socotaa meel dhow mise waxaad ku socotaa meel fog ma bilaa qorshaad tahay oo waad iska nooshahay mise waxaad ku socotaa dariiq toosan waayahay xisaabtan taana waad garanaysaa qofka muslimka waxa la doonayaa dariiqa loo jeexay inuu raaco ka xisaabtiisu way saxan tahay qof wuxuu ku biiraya dadka wanaagsan sidaad u gaaraysaa halkaad ku socoto sida aad u gaarayso iyaduna qorshe u baahan tahay 3 su'aalood haddii aad saxdo oo aad ka jawaabto waxaad noqonaysaa qof ku guuleystay qorshihiisa nololeed iyo geeridaba barnaamijkeenan oo toddobaadle ah taxane ah saa inoogu socon doona haddii ilaahay ka dhigo casharkiisii koobaad intaasaan kaga baxayaa nafta ayaynu dul joognaa weli waanaynu sii socon doonaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakatu